munaasabadan waxay Mr. Sara loo soo agaasimay markaana abaalmarino lagu guddoonsiinay ardayda kaalmaha hore ka galay tartanka Quraanka Kariimka ayaa lagu qabtay gudaha masaajidka Al-Nuur ee magaalada Beledweyne. ganacsato baada waxbarashada culimaadudiin waalidiin ardayda ka qayb galay tartanka iyo marsalaf kale ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadan. dhaqana Maxamed Warsamo oo ka mid ah maamulka mu'asasada Al-Nuur oo soo qaban qaabisay tartankan ayaa ka warramaya marxaladii kala duwanaa uu soo maray tartanka tan iyo markii la bilaabay sanadkii 1997. waxay soo bilaabatay tartankii ugu horeeyay ee qabatay 1997 ayay halkan ku qabatay iyo maanta oo taariikhdu tahay 2024 intaas ayay mu'asasadu Masjidun Nuur ay tartanka ku qabanaysay hal sano oo kamid ah ayay waxay ku qabatay magaalada meel kamid ah oo mujamaca waagi meesha ku aan jiray masjidka ku dhex yaalay hal sano oo kamid ah ku qabatay inta kale sanad oo baaqda maahane waxa lagu qabanayay Masjidun Nuur boqolkiiba 98 ma baaqanaynin sano walba la qabanayay taag walba la eg tahay in walba miisaankeedu la eg yahayba tartanka waa la qabanayay ardada tartantay sanadkan waxay ahayd 97 arday dugsiyada ka soo tartameen waxa lagu sheegay ragga diiwaangelinta hay 42 dugsi inuu yahay ardada tartamaysana waa 97 arday gabdhaha adigu 38 ilaa 40 gabdhood inta kalena waa wiilal. qaar ka mid ah culimaadudiinka iyo ganacsatada ka qayb galay munaasabadan ayaa hadallo dardaaran u jeediyay macallimiinta dugsiyada Quraanka iyo waalidiinta. alle wuxuu leeyahay waxaan idin soo dejinay kitaabkaas oo sharaftiin ay ku sugan tahay miyaad waxba garanaynin caqligii naaw dikriga waxay macna sharaf kitaabaan idin soo dejinay kitaabkaas oo ummatul muhammadiyya dhammaan ugu sugan yahay sharaftooda iyo cadiinkooda. alle wuxuu leeyahay afalaa tacqiluun war miyaad waxba garanaynin nicamta ilaahay idin yeelay kitaabka weyninka badan alle idinku soo dejiyey maad fiirfiirisaan oo macaanid aad akhrisaan oo tadabbur alle timaadaan. aayad kale alle wuxuu leeyahay wa innahu ladikrun laka waliqowmik qur-aankan cadiimka furqaanta nabo maxamed loogu soo dejiyey sharafo adiga iyo ummadda qoomkaada buu yahay wa innahu ladikrun laka waliqowmik wa sawfa tus'aluun baleedooda dhammi alle wuxuu leeyahay waa laydin weydiin doonaa kitaabkaa nicamta badan sharaftiin ay ku sugan tahay alle idinku soo dejiyey waa laydin su'aalayaa maxaa lagu su'aalayaa kitaabka lagu soo dejiyey ma ku camal fashay waa liibaan kuma camal falin waa khasaare. ilaahay kitaabkiisu wuxuu noo sheegay yaa ayuha nnaasu qad jaa'akum burhaanun min rabbikum wa anzalnaa ilaykum nuuran mubiina. qad jaa'akum burhaanun min rabbikum waa nabi maxamed iyo kitaabkii uu noo keenay wa anzalnaa ilaykum nuuran mubiinan ayuu kitaab nuurnimadiisana ay caddahay yahdi bihi llaahu subula asalaam. ilaahay wuxuu ku hanuuniyaa jidadka nabadgelyada waa maxay wa an icbuduunii hada siraatu mustaqiim jidkaas waa jidka nabadgelyada waana wixii naloo abuuray wey wayukhrijuhum min adulumaat ila annuur mugdiga ayuu naga bixinayaa intuu noo saarayaa nuurka noo saaraya kitaabka qur-aanka saas waa lagu mahangoobo ilmaha ku tarbiyayno wax walba laga hormariyo. shacabka Soomaaliyeed iyo ubadka Soomaaliyeed iyo waalidka Soomaaliyeed guud ahaan sidaan qur-aanka ugu dadaalno barashadiisa oo waxa aad u qiimo badan duniduna ay mataqaanaa ay la yaaban yihiin laakiin waxa isqabala dhaqankeena iyo qur-aanka aan baranno xagay kala joogaan تايا مصيبة. هذا الشعب القرآن مركي ليرا الشعب الصومالي دغن كيسة كورما أمانة دي سكورما تعاليم تي قرآن كسيدو فليه كورما نولشو دي سيدو ماريان كورما حقوق دي جار كي يوليجي إسلام كي إلا حرمة حاجة كجوكنا وح مصيبة هنا القرآن كي إلا هنا حفظنه
dhaqankeenna uu noqdo mid qur-aanka kasoo horjeeda. qur-aankana waa furaha qalbiga qofka bini aadamka ah qalbigiisa waxaa fura qur-aanka qofka haddii uu qur-aan yaqaano wax ka hor imaanayo kalo aqoona ma jirto waxaa la ogaaday ardada qur-aanka ku fiican ayaa maadooyinka maadiga ahna ku fiican marka haddaad rabto canugaada inuu maadooyinka maadiga wax ka keeno ku dhiirigeli marka hore inuu qur-aanka furo u noqdo macallimiinta marka waxaan rabaa inaan idhaahdo adduunka waxa ugu qiimo badan waa diin iyo dad diinta oo ilaahay subxaana wa tacaala usoo dejiyay adduunkan in looga dhaqmo ayaa ugu qiimo badan waxa ku xigana waa dadka labadiina waa laydinku aaminay oo canugii markuu 6 sano gaaro ilaa uu 15 sano ka gaaro waalidka wuxuu ku aaminsan yahay inuu maaragtay macallin qur'aana ilmihiisa gacanta ku haayo waxa uu haynayna waa hana inuu diin bar ayaa la rabaa marka mas'uuliyadaas ayaa idin saaran waxaa la rabaa siday tahay inaad uga soo baxdaan bisha ramadaan markay soo galayso saxaabada rasuulka allaha ka raali noqdee markay soo galayso bisha ramadaan 6 bilood ka hor ayay waxay ilaahay weydiisan jireen inuu bisha ramadaan gaarsiiyo markay ka tagtana 6 bilood kale waxay ilaahay weydiisan jireen inuu amalkii ka aqbalo idan waxaad dareemaysaa meeshaas isticdaad inay ugu jireen bisha ramadaan munaasabad ahaan sidii ay u xushmaynayaan annagana waxaa laga yaabaa dadkeena inuusan ku baraarugsanayn bisha ramadaan qaar inay ku soo dhaweynayaan in la yiraahdo tartan isboortiga jiro la yiraahdo koobka ramadaanka ciyaarta ramadaanka meel ay ka jirto malaha waa wax khatar ah waa dad fahamka uu ka dhunsan yahay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu fahamkeena kobciyo guulaha oo qofka xaqiijiya adduunkiisa iyo aakhiradiisana waxa ugu qiimo badan kobaca fahamkaaga oo si sax noqda dad baa bisha ramadaan ku soo dhaweeyay inay turub iyo laadhuu habeenkii oo dhan ku soo jeedaan maalintiina ay hurdaan dad kale ku soo jeedo inay tasbiix iyo tahmiid iyo tahliil iyo takbiir iyo qiraa'at alqur'aan ay mashquul ku yihiin oo sidii saxdaheed ah dad kale agaasimaya tartamada noocaan ah oo abaabulaya oo raba inay ku guuleystaan fursadaha qaaliga ah oo kabaasatiga dadka muslimiinta ah dhisaya waxgalna u ah mustaqbalkooda tartankan oo sanad kasta lagu qabta magaalada Beledweyne ayaa looga gool leeyahay sidii loo dhiirigelin lahaa ardayda dugsiyada quraanka kariimka Maxamed Cabdi Sanay Radio Berlula Beledweyne